بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن دمان أصحابتا قيمها يقايها له مر والبا إغلا السعودة شبكة solarportal.com solarportal فيسبوك لايف يهدو إذن رافو مر والبا واحد يقايا كرتان solarportal يوتيوب إسلا مركانا سبسكرايب آتكري كرتان برنامج كان وكورونا فيروس update oo aan ku ballanay saacada geeska Afrikada bari markay tahay 5 galabnimo ugu horeyn waxaan mar walba afeef ka bixinaya anigu dhakhtar ma ihi nurse ma ihi health professional ma ihi akhbaaraad maalin walba aan ka helo Dr. Yaasin Abdi Saciid oo ku sugan magaalada Wuhan gobolka Hubei ee wadanka China ayaan ummadda Soomaaliyeed aan jecelahay inaan la wadaago sida awgeed waxaan si sharaf iyo karaamo leh idinkaga codsanayaa meel walba aad adduunka joogtaan in barnaamijka aad ku dhufataan share aad ku dhufataan si ummadda kale ay u gaarto isla markaana ay ogaadaan doctorka saaka ayaan isla hadalnay dad badan ayaa la soo xiriiray dadka Soomaaliyeedna wuxuu u sheegay qof walba oo doonaya waa expert oo Wuhan isbitaalkaas ka shaqeynayay 3 biloodna gurigiisa ayuu karantiil ku jira doctorka caafimaadkiisana waa tamaam marka good news uu jira waa isoo sheegay waxyaabo badan ayaa jira ugu horeyn hawada Soomaali gabi ahaan waxay xirmaysaa 5 saac iyo bar kadib ayay xirmaysaa Soomaali dibadda lagama soo gali karo lagamana bixi karo oo diyaarad dibadda aadayso ma jirto wadanka localka wixii ah gobolada Soomaaliyeed waa la teegi kara wax dhibaato bayrata kama jirto taasna waa waxa kaliya ee Soomaaliya ay kaga badbaadi karto oo waqti badan aan u ololayn ololahaasna waxa hormuud ka ahaa Dr. Yaasin oo yiri dawladda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed gaarsiis sida kaliya wadanka lagu badbaadin karo waa in diyaaradaha laga reebaa boqolkiiba 90 cudurkan waxa keena diyaaradaha ayaa keena dadka la socda marka anagu waxaan ku fiicannahay dad waxaan nahay xoolo dhaqato ah beeraley ah reer miyi ah oo rural people ah marka way adkaanaysaa Soomaaliya sida Shiinaha iyo Talyaaniga ugu faafay saas ay tahay taxadir ayaa loo baahan yahay Dr. Yaasin wuxuu ii sheegay in maanta oo arbaca ah wadanka Shiinaha uu gabi ahaan ka yaraaday coronaviruskii dadkii laga helay aad ay hoos ugu dhacay marka China wuxuu gaaray peak koray waa soo degay hoos ayuu yimid marka dadkii laga helay way si yaraadeen meelo qaar kood isbitaalada xataa looma baahna dadkii in lagu daaweeyo oo waa la xiray iminka wuxuu farakulul ku hayaa Europe iyo waqooyiga America oo dadku ay ku dhimanayaan qaasatan wadanka Talyaaniga xilligan idin la hadlayo 208,000 ayuu maray kaysaska adduunka wadanka Ingiriiska wadanka Talyaaniga oo aad lagu baabay Spain melba ayuu gaaray marka wadamadii hore u maray markay heerkaas ay gaarayaan su'aasha ugu weyn ee la isweydiiyo dhakhtarkana aan weydiiyay waxay ahayd doctor wadamada kuleelka ah bahalka ma ka badbaadayaan shaqo kuma leh wuxuu ii sheegay in caadiyan virusyada jira ee dhasha xilliyada winterka ama qaboobaha dhasha laga soo bilaabo bilowga October ilaa Febraayo xilliyada kuleelka intooda badan hoos ay u dibcaan bakteeriyada way dhimataa laakiin wuxuu yiri Soomaaliya way kulushahay awgeeda loogama badbaadin Soomaaliya waxa badbaadinay hawadan la xiray iyo dadkooda kala firirsan oo dadkooda reer miyi u badan xoolo dhaqato sida awgeed oo contact aan la lahayn dad dibadda ka yimaaday marka wax kale oo maaragtay ka celinay haba yaraatee ma jirto waxa kale oo maaragtay uu ii sheegay oo aan wada ognahay dadka u dhinta boqolkiiba 70 haday ahaan lahayn wadanka Talyaaniga ee meelaha kale waa dadka waayeelka ee dadooda ay ka weyn 70 sano marka qof dhalinyaro ma u dhinta tabcan uu dhinta waxaan aragnay ciyaaryahan 22 jir wadanka Spain ka ciyaara inuu ku dhintay waxa qofkaas uu dhimanaya underlying sickness wax la yiraahdo oo macnaheedu ay tahay xanuun ayaa u horeeyay oo waxa kamid ah sida kaadi macaanka dhiig karka wadna xanuunka dufinta oo badata ama cholesterolka oo bata ama cudurro kaga dhacay kaliyaha ama beerka hadduu qofka leeyahay waa u sii fududaanaysa laakiin dadka dadooda u dhaxayso 10 ilaa iyo 70 inta badan percentage ka dhintay waxay ka yartahay 5 ayay ka yartahay sida ay tahayna qofka markuu maqlo coronavirus baa ku dhacay macnaheedu ma ahan buu yiri condemnation mort Talyaaniga ku dhaha ama xukun dhimasho ku dhacda ma ahan dadku way ka soo kabsadaan waxay galaan self isolation wax la yiraahdo ay galaan marka waxaan kala weydiiyay dadku way ku jahwareereen doctorka waa maxay astaamaha marka 12 point oo kala duwan ayuu soo qaatay iyo 12 maalmood oo kala duwan astaamaha maxay tahay waxa laga yaabaa dadka qaar kood inay hindhisaan ama hergab ku dhaco laguma jeedo coronavirus marka dad badan bay yiri doctorka igala soo xiriiray UK oo adiga dhankaaga iga soo maray wuxuu yiri dadkaas astaamaha way lahaayeen marka qofka ha ogaado yiri أنا مرة بدأ مكوع لي عذر ككورونا فيروس عيب ما أهن
HIV haddaad qabtid ceeb ma ahan, AIDS haddaad qabtid ceeb ma ahan, TB haddii kugu dhacdo ceeb ma ahan, cudurka ilaahay baa keena ceeb ma ahan. marka in laysku fadeexeeyo xataa wuxuu yiri dadku waxay ka baqayaan, marka hadduu kugu dhaco ilaahay baa igu ridadhe. qof kastoo ku dhaca, Idris Elba ku dhacday, yarkiisa digeena ku dhacay, waxa ku dhacay Tom Hanks atooraha caanka ayaa ku dhacay. marka cudurka ceeb ma ahan, dadka Soomaaliyeed gaarsii buu yiri. kow maalinta koowaad day 1 waxaad dareemaysaa buu yiri qandho, daal, waa fatigue, daal ayaa dareemaysaa, muruq xanuun ayaa dareemaysaa ayuu yiri, iyo qufac qalalan ama dry cough. marka qufacan waxaan isku dayay dry cough-kan oo lagu qufacayo inaan dadka u micneeyo, laakiin dadku way ku adkaatay. qufaca bronkiitada qofka markuu haayo shafka ka soo qufacayo ma ahan kan wuxuu noqonayaa maanta dhan. inta ayaa wuxuu ii sheegay inay kaa korayso xariir, ay kaa korayso ama wax ay halkan kaa taabanayaan, sida ayaa loo qufacaa. kan waa astaamaha maalinta koowaad. maalinta shanaad, markaa maalinta koowaad markuu leeyahay 1 2 3 ma ahan, maalinta shanaad markuu soo gaaro hadduu bahal ku soo hayo qofka uu ku dhacay ayuu yiri ama uu ku soo socdo, wuxuu dhib ku noqonayaa neefsashada. waxa sida dareemka dadka waayeelka, waxa dareema sida dadka waayeelka iyo dadka cudur hor u qabay ayaa dareema. waad aragtay dad waxa jira markay daqiiqad ay socdaan istaaga oo Soomaalidu waxay tiraahdaa waa neeftuuraya ama hiraanher baa ku jira ama neefta qof way dhibaysaa. marka waa maalinta shanaad hadduu kugu soo waayo sambabadii ayaa fallaarihii viruska gaaray. maalinta toddobaad qofka cudurka ku dhacay iminka waxaa lagu arkayaa dyspnea wax la yiraahdo. dyspnea maxay tahay? oo ah neeftuur isagoo jaranjaro xataa laba ah ama salaanka aan kori karin ayaa lagu arkayaa. marka waxay noqonaysaa qofka neefta waayo sambabadii ayuu gaaray. marka xilliyadaas ayaa loo baahan yahay in dhaqaatiirta degdeg loo tago ama health service kala la tago. su'aalo badan ayaa la soo weydiiyey, marka su'aalaha waan soo gelayaa insha Allah. maalinta sideedaad qofka cudurka uu ku dhaco waxaa lagu arkayaa acute respiratory distress syndrome ama haddii la soo gaabiyo ARDS. xilligaas waa xilliga halista oo ah in sambabada aan siin jirka intiisa kale oxygentii loogu talagalay ayuu yiri doctor. marka waxaa la yidhahdaa ARDS. marka waxaad ka raadiysaan Google-ka acute respiratory distress syndrome ayaa la yidhahdaa ayuu yiri. sambabada oxygenkii ay ku neefsan lahayn ilaa markaad neefsatid labadaada sambab qofka markuu yiraahdo wuxuu dareemayaa neefta inuu jirka qaybinayso oxygenta. marka oxygenta ayaanu gaarin ayuu yiri doctorka. isbitaalka qofkaas marka maalinta toddobaad intaanan gaarin kaas wuxuu leeyahay maalinta toddobaad day 10 iminka neefsashadu waxay noqonaysaa mid dhib ku ah shakhsiga qaba cudurka, taasoo qasab ay ku tahay inuu galo isbitaal qaybta intensive care unit si loo badbaadiyo. markan waa critical in la badbaadiyo ayaa la doonayaa xilligan. isbitaalkan wuxuu ku jiri karaa 10 maalmood oo isolated laga dhigo ama meel gooni ah oo keligiisa lagu talagalay la geliyo. marka daawo lagu mudi maayo, wax lagu samayn maayo, laakiin waxa loo samaynayaa saan hore u sheegay in oxygen la siiyo oo sambabada la caawimaad lagu siiyo, isla markaana cunto ma cuni karo in fleebo lagu taago. marka dadka survivalkooda dad boqolaal kun oo qofood ilaa iyo 100 dad ka badan ayaa ka badbaaday oo Chinese iyo European isugu jira oo ka soo baxay ayaa jirta. marka macnaha ma ahan coronavirus hadduu kugu dhaco xukun dil baa tahay ma ahan, dadka yaan la waalin. teeda kale qofku markuu qabo qof caadi ah 14 days ama 14 maalmood wuxuu ku jirayaa incubation ayuu ku jirayaa. day 12 oo ah critical date oo muhiim ah haddii isbitaalka uu ku jiro shakhsigan coronavirus-ku ku dhacay ee lagu quudiyo oxygen, qandhada zaa'idka ah way dhacaysaa, hoos bay u dhacaysaa. qandhada hadday dhacdo, qandhada ilaa waa qaab jirka uu ku leeyahay waxbaa ay haya. hadday dhacdo dadka uu ku dhaco coronavirus way ka badbaadaan neeftuurka, kadibna 12 maalmood gudahooda waxay noqonayaan qof caadi bay noqonayaan. marka daawo lama siinin, ogow daawo ma jirto. daawo idin sheegaya hadda shirkad Jarmal ayaa waxay tiri September October ayaan soo saaraynaa. shirkad ma aragtay aad u weyn oo hadda stockgeedii iyo lacagteedii kor u kacay. marka daawo ma jirto. qofkii ku yiraahdo daawo lagu sameeyay Falastiin iyo waxa lagu sameeyay Talyaaniga, waxaas daawo ma jirto. waxa kaloon arkay oo aad u la yaabay immune systemka ama jirka waxa ka difaaca cudurrada ayuu target ka dhigtaa coronavirus-kan. sidaa awgeed waxaa la yiri haddii qandho yar ay ku qabato intaad naxdid tahay oran coronavirus ku haya,
ha isku daldalin ama ha cabin antidolora ama paracetamol intaad cabtid qanada saa ugu dajisid waayo more aad kaninigan aad cabtid more immune systemkaagu uu daciif uu noqonayo ama la dagaalanka jirka unugyada uu daciif noqonayo hadduu daciif noqdana coronaviruska saa ula dagaashid way adag tahay marka dadkan kala soo xiriiray doctorka magaalada London iyo magaalo kale oo Ingiriiska waxay u sheegeen astaamihii inay arkeen marka mar badan ku celinaya cudurkan coronavirus hadduu kugu dhaco nafta hore kaaga bixi mayso ceeb ma ahan fadeexa ma ahan si aad u badbaadaysid caruurtaada iyo waalidka iyo dadka kula dhaqan iyo dadka aad u tagaysid waa in aad si degdeg ah ula xiriirtaa goobaha caafimaadka isbitaalada hotline-ka ama haddii kaliya aad tahay self isolated ama guriga aad isku soo xirtid si ummadda kale u badbaadaysid hadday ahaan lahayn muslim iyo gaale iyo bani israel hadday ahaan lahaayeen marka laakiin haddaa israad waa ceeb ummadda ha u sheegin way kugu dhacaysaa aniga hadduu maanta ilaahay igu keeno cudurka ninka ugu horeeya life baan kaga soo gudbina waxaan leeyahay cudurkii baa igu dhacay alxamdulilah aniga qofkii ila kulmay qofkaan la sheekaystay qofkaan shaah la cabay qof walba walaalayaalow isbaara marka cudurka ma aan Soomaali haddaan nahay cudur baan ka dhibnaa ceeb wax ilaahay ku keen ceeb ma ceebtu waa wax adiga aad samaystay yaa ceeb marka cudurka haddaa ceeb u aragtaan dadka ummadda baabi'inaysaan marka fariintan ayuu soo diray doctorku wuxuu leeyahay Soomaalida ku nool Soomaaliya iyo kuwa qurbaha maxaa looga baahan yahay ayaan weydiiyay points aad u wanaagsan ayuu ii sheegay marka Soomaali waxaan nahay dad aad u indha adag u dhaga waxna aan maqlin marka bal ila dhageysta doctorku wuxuu sheegay ilaa qofka expertiga ay yaqaan oo Soomaali noo ah waxa noo sheegay inaan dhageysan wuxuu yiri gabi ahaan joojiya social gathering wax luqada Ingiriiska lagu yiraahdo oo ah aroosyada xafladaha fadhi ku dirirka jiimka la tago shaneemada maqaayadaha masaajidka bangiga supermarketka iyo wixii la mid ah inay joojisaan waa the matter of life and death especially dadka ku nool North America iyo Europe ku nool wuxuu yiri intaan joojiya ayuu yiri nafsadaada markay halis ku jirto masaajid xataa culimo nin wadaadaan la hadlay barnaamijka intaan soo galin caalim oo la yaqaan wuxuu yiri nafsadaada asxaabtay ku dhacday marka asxaabtii waagii rasuulka calayhi salaatu wasalaam noolaa actionka ay sameeyeen adiga kama fadli badnid masaajid ha tagin gurigaaga ku tuko ha tagin fadhi ku dirir qabiilka sheekayn aroos waxa aroos qofkii is doonay ha sugo ilaa uu ka dhamaado samarka ama ha samayso nikaax ha samayso cunto yaa la cunin dadkana ma aragtay alxamdulillah qolaha kala seexdaan si loo badbaado marka wuxuu ku daray shaneemada jiimka maqaayadaha la isku fadhiisto iyo social gathering meelaha la isugu yimaado dhan gabi ahaan ha iska ilaaliyaan buu yiri wuxuu ka hadlayaa dadka dibadda jooga Soomaaliya teeda way ka duwan tahay social distance ana iska ilaaliyaan buu yiri kala fogaanshaha dadka aad soo hoos galaysaan waa in qofka 2 ilaa 3 ilaa 4 mitir uu ka jira hadda waxaan arkay masaajid la kala tukanayo waxaan arkay xilligan wuxuu yiri waxa muhiim ah culimadan in la weydiiyo oo la yiraahdo si ummadda loo badbaadiyo annaga aan ka hadlayna Soomaaliya waa 15 milyan oo intaas milyan laga dilay marka Soomaaliya in dad badan ay ka dhintaan xilligan haddii wadkooda imaaday we can afford ilaahay nagu ma keenay ilaahayna naga hayo sida aawada social distance tan ugu muhiimsan gacma dhaqida hal badiyo iyadoo qaabka loo dhaqayo uu yahay specific waa inuu sheegtaa buu yiri wuxuu yiri viruska intuu galaa buu yiri meeshaan faraha inta meeshaan cad ee farahayga dhuuban aad ku aragtaan iyo gala marka anagu gacmaha saan baan u dhaqnaa hadda waxaan aragnay wax fiican bay sameeyeen xisbiye qaarkood oo Soomaaliya iyo dad caana waa dadka in lagu dhiirigeliyaa annaga wuxuu yiri intaan dhameynin waxaan advance aan haysana 3 bilood ka hor baan ogaanay China Soomaalida very educated bay ka noqdeen marka faraha markaad dhaqaysid 20 ilaa 30 sekin waa inaad saan u dhaqdaa buu yiri saan inaad u dhaqdaa halkan buu galaa buu yiri haddii la dhaqo viruska isla markii uu ka baxayaa buu yiri automatically laakiin walaalayaal dhaqan aad u xun ayaan ku arkay Soomaalida kuwii dibadda joogay kuwii wadanka joogay waxaad arkaysaa qof sidaan oranaya intuu ku hindusada gacantii buu saan leeyahay taas waa adoo tiri China u duulaya viruska sanka leega madax ma dhaanto markaas wadana ku salaamaya bahalka gacantii markay dry noqoto way galaysaa waxaad arkaysaa qof Soomaali ah boqol baan arkay meesha ka yimaadaan sanka intay farta galiyay tiisha wadan halkan bay gaarsiinayaan markaas saan buu leeyahay waxa ka sii daran oo dhakhtarku uu yiri waa tan ugu daran waxay tahay qof Soomaali waxa arkaysaa sidaan intuu sanka u qabsado sanki sidaan ugu diibsan lagu tiray ka bacdina saan oranaya this is disaster unhygienic un-islamic anything marka qofka Soomaaliga ah meeluu joogo hadduu ka hor yimaado salaamu calaykum hadduu ku yiraahdo wa calaykum asalaam dhe qofku doon ha ahaado qofku reerka ugu weyn ama ugu yar hadduu ahaado garabkan ku dhufo ama waxaad tirahdaa waa salaaman tahay ama dusha ka salaam laakiin haddii lagugu soo boodo shafkan la isa saarayo gabi ahaan hala joojiyo yiri salaanta iyo gacmo dhaqida gacmahana mar walba dhaq qofna ha salaamin
assalaamu calaykum taas ayaa waajiba marka dhakhtarka intaas sheeg waana muhiim gacantana inta ayaa la doonaya meesha la dhaqayo inta every 20 second dad ayaa waxay yiraahdeen waxay ku doodeen oo yiraahdeen doctor waa ku jira doctor Yaasiin aan ku salaamaya aroos online doctor Yaasiin live ayuu ku jira dadka inta badan live ka kala ma hadla laakiin aad baan ugu faraxsanahay doctorka inuu daawan doctor Yaasiin aad u mahadsantahay ilaahay khayr ha ku siiyo doctor Yaasiin Grab ayaa la yiraahdaa qof walba ha la xiriiro wiilkaas dhalinyarada ah oo xataa 35 sano aan gaarin oo ma sha Allah okay salaanta gacanta la joojiyo cudurkan hadduu kugu dhaco macnaheeda ma aha inaad hore ka dhimanaysid dhimashada ilaahay bahaya la xiriir hotline-ka iyo doctorka isbitaalada si aad u badbaadisid qoyskaaga iyo dadka aad la nooshahay dadka da'dooda u dhaxayso ilaa tan idin sheegay 60ka way ka badbaadaan almost 80% 60 wixii ka hoose ilaa 10 way ka badbaadaan taasoo ah wixii hadda aan hore u sheegnay waxa kale uu yiri dadka wuxuu sheegay doctor Yaasiin in coronavirus uu la dagaalamo difaaca jirka ama immune systemka sida awgeed wuxuu yiri doctorka daawooyinka daciif ka dhigaya immune systemka ee qandhada iyo qufaca la qaato yaan la isku badinin markuu xanuun ku hayo waa la qaadan lahaa haddii immune systemka wax la dagaalamaya ay jiraan dhibaatay ku keenayaan waxa kale oo muhiim ah oo qof kasta loo sheegaya dadkii saarnaa diyaaradii patient zero-ga Soomaaliya maaday Ethiopian Airlines shakhsiga ka soo baxay China ee soo raacay China Airways Dubai yimid Dubai kadibna diyaarad soo raacay Ethiopia kadibna uu yimaaday Soomaaliya dadkaas ha ogaadaan hay-adaha la xiriiraan hadda dawladda Soomaaliya waxay diyaarisay oo ra'iisul wasaaruhu ka hadlay 5 milyan project oo dollar iyo teendhooyin ayaa la dhisay si loo badbaadiyo laakiin maanta waxaan idin sheegayaa kuleel iyo qabow male bahalkan laakiin annaga waxaan nacaymiyay waddankeena waxa la dhihi jiray one of the worst place in the world la dhihi jiray laakiin maanta waxaan idin xaqiijinayaa maanta Talyaani iyo Mareykan iyo dadka inay buluug inay rabaan inay timaadaan taasna maxay yeelay dad waxaan ahay rural oo baadiyaha ku nool dad xoolo dhaqato ah marka la ku soo celinaya sida ayaa ka badbaadin karta waayo dadka meel kala duwan ay degan yihiin laakiin xiritaankan hadda la xiray way fiican tahay maanta hawada Soomaaliya la xiray oo diyaaradaha laga joojiyo waa wax fiican sababtoo ah way yaraanaysaa marka qof walba waa in uu wacyigelin sameeyaa oo ka qayb qaataa arintan waa mas'uuliyad qof walba Soomaaliya saaran waan sii wadayaa wuxuu ii sheegay Soomaaliya inay noqoto sida China iyo Talyaaniga way adag tahay sababtu waa safarada diyaaradeed oo wadanka ku yar taan ku celceliyay coronavirus ma yaqaan wadan qabow ama kuleel sababta Afrika ugu yar yahay waa safarada diyaaradaha oo yar taas waan sheegnay coronavirus ceeb ma ahan waa cudur qof kasta oo ku dhici kara sida awgeed haddii astaamaha aad dareentid la xiriir goobaha caafimaadka ama gurigaaga ha ka soo bixin 14 maalmood 14 Soomaaliya inuu ku faafo way adkaanaysaa waayo dadku way kala dheer taas waan sheegnay ugu dambeyn waxaan rabnaa qof walba Soomaali inuu ogaado coronavirus-ka ceeb ma ahan hadduu kugu dhaco ama aad dareentid waxaad samaynaysaa dad kala badbaadi u sheeg reerkaaga ayaa ugu horeeya dadka ugu horeeya uu ku dhacayo waa reerkaaga marka reerkaaga saad u badbaadisid dadka waayeelka iyo dadka isolated ka kala dhig oo kala kaxee meelo kala gee bahalkan projection ka say u sameeyeen markuu sidan u gaaro Europe iyo North America 1918 wadanka UK dad intaasoo milyan ayaa ku dhimatay marka Black Death ku yimaaday marka hadda waxay qorsheynayaan oo ay leeyihiin predicting ay ku sameeyaan ku sii saadaalinayaan dadkan in buluugta waxay leeyihiin 180 milyan ayaa la filayaa inay ku dhintaan marka Soomaali ma ku dhimanaysaa Allahu yaclam way dhiman karaan Soomaali waa bani aadamka la mid yihiin qofka su'aalaha soo weydiiyay wuxuu yiri dad Soomaali dadka muslimka kuma dhac cudurkan waxba kama jiraan dadka muslimka waagi asxaabtu ku dhici jiray daacuunka ninka wadaadka amaanta aan la sheekaysay wuxuu ii sheegay karantiilkan waagaas uu jiro yiri magaalo oo daacuun ka dhacay waqtigii wuxuu ii sheegay inuu yahay ayaan filayaa ma hubo Umar bin Khadaab in magaalada karantiil la gariyo oo la xiray qofna kama soo bixi karo qofna magaal kale la yiri marka magaaladii lagu arko hadii la xiro wax fiican oo dadka lagu badbaadinayo marka qof walba aqliga ka shaqeeysiyo coronavirus ceeb ma ahan waa cudur jira hadii kala diabetes ceeb aan ka dhigno wadna xanuun wixii ilaahay keena ceeb ma ahan hadii aad isku dareentid aad joogtid Toronto Washington Minnesota aad isku aragtid in cudurkan uu kugu dhacay sida kaliya aad ku badbaadi kartid waxay tahay in aad la xiriirtid waad ka badbaadaysaa dadka waayeelka laga warqabo marka abayaasheena hooyooyinkeena ayooyinkeena Soomaali ilaahay baa noo kasay DNA waxaan leenahay survival rate keena waa 0 qofka Soomaaliga markuu 45 gaaro diabetes saddexdii Soomaaliya socoto laba ayaa diabetes ku dhacda bayd weyn dhakhtar mi information waan soo ururiyay marka ayaa la dhigay ninkan gormo dhakhtar noqday
information aan soo ururiyay diabetes aan ku dhacda heart problem diet xun marka cuntada Dr. Yaasin wuxuu ku soo celceliyay cuntada immune-ka kor u qaada ee qofka siisa nutrition-ka fiican cuntadaas lagu dadaalo maxaa kamid ah waan naqaanaa qamadiga ha ahaato soorta ha ahaato galleyda ha ahaato cuntada hilibkoo la yareeyo qudaartoo la badsado fruitku waa common sense doctorku way u celcelisaa markaan la hadlay every day update ayuu siiyaa ila qeyr Allah si waana ku jira online ayuu ku jira marka linkigiisa waan idin soo dhigaya marka sida looga badbaadayo waxay tahay salaanta joojiya sankan iyo afkan aad taabanaysaan maaska bahalkan la gashto waxay tahay in aadan taaban wejigaaga iyo afkaaga inaadan taaban laakiin maalintii ay dhacdo hanso inaad dhahdid oo saan aad dhahdid oo gacmaha saan isku dhahdid virus aad abuuraysa waxaad noqonaysaa qof virus socda waxaan ognahay caafimaadka wuxuu ku jiraa nadaafadana waa diinta kala barkeeda la yiri marka wadankeena ilaahay ka badbaadiyo good news ka ugu wanaagsan maanta aan maqlay wuxuu ahaa wadankan uu ka badbaadayaa wadankeena Soomaaliya diyaaradii waa la joojiyay waa wadan rural ah waa xoolo dhaqato waa ka badbaadaya ilaahayna waa ka badbaadinaya culimadan marka waxa la doonaya inay quraanka la badiyo ma qof walba masaajid ku tukado social contact la daayo fadhi ku dirka adeysaan hadda magaalada Venezia waxa dhaxmaray hartii nadiif ay noqotay wadanka China waxa la iga soo sheegay in hawadii ay fiicnaatay cudurkan haddii ummadda Soomaaliyeed qalbigooda isu wanaajinayo qabiilkan iyo qurunkan iyo fadhi ku dirirkan iyo dhibaatadan iyo waxyaalan ay sameeyaan kala geenayo ilaahay ma aragtay ayaa noo sahlaya marka qof walba oo Soomaaliya hadduu kugu dhaco cudurka ilaahay baa keena ceeb ma ahan dadka kula jooga badbaadi iska ilaaliya fadhi ku dirirka iska ilaaliya meelaha aad wareegaysaan wixii kale oo update ah berri ayaan la hadlay doctorka hadda live ku jira waxaan idinku diray email haddii aad tahay qof ka shakiyay hergeb iyo coronavirus ma laha haddii aad ka shakisid fadlan doctor Yaasiin weydii waxa dhada doctor waxaas isku arkaa maxaan sameeyaa ha ka xishoonin reerkaagana geli hooyo Soomaaliyeed baa ku dhimatay Sweden nin dhalinyaro Soomaali oo Sweden ku nool Stockholm way la soo xiriiray guriga isku soo xiray wuxuu yiri Cabdinaasir waa igu dhacay cudurkii saako la soo hadlo waa ka naxay laakiin wuxuu ahaa nin raga wuxuu yiri Cabdinaasirow baalkii ay hayeen laakiin immune-kayga fiican waxa igu socdo yiri Flayboyin I am okay yiri dadka ma aragtay mana rabin in magaciisa iyo sawirkiisa iyo wixiisa aan la sii qaybsado asna Ilaahay caafiyo dad badan buu ku dhacay Soomaaliga ku dhacay adeegna kama duwan aniga ma duwana laakiin nadaafada qof Soomaali ah salaamin salaamu alaykum karkadhe himbisadan gacanta ku hindisoonaysaan sanka afarta gelinaysaan afka aad taabanaysaan waa disgusting walaalayaal jooji waa dhaqan aad u xun candhoofadan aad tufaysan jooji waxyaalahan annaga 60 milyan Talyaaniga naxsan annaga intay joognaa marka Soomaali hadana Soomaali hadii baalkan uu soo galo Ilaahay ma keenee waa u dhamaatay wadankii Soomaali la jiray lama arkayo marka xuduud ma yaqaano laandheere ma ahan qabiil ma yaqaan qof ku dhacaya marka qof walba waa mas'uuliyad ay idin saaran hal laga shaqeysto ilaahayna naga ilaaliyo Soomaalida dibadda joogto meel walba ay joogtaan muslimka dadka kale aan muslimka ahayn qof walba ilaahay abuur ilaahay badbaadiyo waan salaamaya wixii update ahna Dr. Yaasin ayaan ka soo qaadaya maalin walbana update ayaan soo sameeynaya billahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh